xuska munaasabada maalinta caalamiga ee haweenka adduunka oo sanad kasta laga xuso dunida oo dhan ayaa Soomaaliland si weyn looga xusaa gobolada iyo degmooyinka dalka oo dhan. Munaasabad weyn ay soo qaban qaabisay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada taasoo ay ka soo qayb galeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Shukri Xariir Ismaaciil, wasiir dowlaha wasaaradda madaxtooyada Maxamed Muuse Abees, agaasimaha xafiiska samafalka, wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare, madaxda ururada haweenkeena iyo nagaad marti sharaf iyo haween aad u tiro badan ayaa lagu qabtay xarunta guriga hay'adda shaqaalaha ee magaalada Hargeysa. Ugu horeyntii munaasabadaasi waxa hadal dhinacyo badan taabanaya oo la xiriidha xuska maalintan iyo muhiimadda ay u leedahay haweenka ka jeedisay wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Shukri Xariir Ismaaciil oo sheegtay kaalinta lixaad kale ee xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ka siisay haweenka, sidoo kalena tilmaantay ahmiyadda ay maalintan u leedahay guud ahaanba haweenweynaha dunida. wasiir Shukri oo arrimahaasi ka hadlaysana waxa hadaladeedii kamid ahaa haweenku waxay ka yihiin lafdhabarta waxaynu arkaynaa isbeddelka ku yimid dalka hadday noqoto dhinaca maxamada isgarabsiga bulshada, wadooyinka, qaab dhismeedka dowladda, hanaanka socodka iyo dhiirigelinta iyo maxaan ku dhahday ku talagalka qorshaha dowladda sidii ugu fuli lahaa iyadoo ku xisaabtamaysa. waxay arrintaas sahashay in xukuumadda maanta iyadoo ka ballanqaadkeedii ka dhabaynaysa inay 25% siiso gabdhaha reer Somaliland ka qaybgeliso maamulka arrimaha bulshada iyo maxaa ku dhahay siyaasadda dhaqan dhaqaale intaas oo dhan inay ka qaybgeliso ku tala gashay. waxaynu ognahay inaynu leenahay afar wasiir ay nasiisay oo weligeed la hore u dhicin toban gabdhood inay noogu soo bixeen golaha deegaanka oo tartamadii si xor ah xalaal ugu tartameen. waxaynu ognahay agaasimayaal fara badan haweenka inay siisay. waxaynu ognahay in laga fakiray daryeelka caafimaadka hooyada oo waxa ugu qaalisana oo maanta goob kasta Soomaaliland laga helayo goobaha caafimaadka hooyooyinka carruurta loogu adeego. waayo haweenku waxay ka mid yihiin shaqaalaha adduunka ayay ka mid yihiin. taas ayaa keentay isbeddel maalintii loo halgamo oo maxaa ku leeyahay maalinta la hordhigo shirweynihii maalinta lagu qabtay magaalada Copenhagen. waxaa ka qayb galay waqti haweena ay hogaaminaysay gabadh Ruushka oo midabka Sovieti ka socotay Uruguay imika dalka Ruushka ahaa ayay maxaa ku leeyahay ka socotay gabadhaas Clara Set ayaa loo jiray gabadhaas. dadna halkaa waxa lagu gudbiyay galdalooyinkii uu lahaa sharciga shaqaalaha waqti xaadirkaas. dadna waxa lagu daray xuquuqda asaasiga haweenka shaqaaluhu leeyihiin. waxaa lagu daray saacadaha in laga dhimo haweenka waqtiga ay nuujinayaan oo saacada nuujin ay jiraan. waxa la sameeyay saacadaha loo yaqaan maternity leave ama fasaxyada umusha. waxa la jireeyay haweenka in loo diro shaqooyinka culus waqtiga ay uurka leeyihiin ama ay nuujinayaan. waxa la jireeyay haweenka in laga bedeli karin goobaha carruurta ay ku korinayaan xilliga uurka leeyihiin iyo xilliga ay umusha ku jiraan oo aan bedel fog la siin ama shaqo ka baxsan meelaha ay carruurta ku hayaan in aan la geynin. wasiir dowlaha wasaaradda madaxtooyada Maxamed Muuse Abees iyo wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Axmed Nuur Faahiye ayaa iyaguna dhankooda si wada jir ah u tilmaamay kaalinta dhaqan dhaqaale, horumar iyo nabadgelyo ay haweenku kaga jiraan bulshada, sidoo kalena xusay hanka ay siisay una hayso haweenka xukuumadda ay ka mid ka yihiin ee madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo. Marwaamina Maxamuud Diiri agaasimaha xafiiska samafalka ayaa sheegtay kaalinta ay haweenku kaga jiraan nabadgelyada iyo horumarka Soomaaliland. ugu horeyntiina waxa hadal soo dhaweynaya mahadnaqa halkaasi ka jeediyay agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Maxamed Muuse Xaaji Cabdi Galayd. waxa sidoo kale munaasabadaasi hadallo kala duwan ka jeediyay mas'uuliyiinta ururada haweenkeena iyo nagaad oo xusay sida ay ugu faraxsan yihiin ka haween ahaan xuska iyo weynaynta maalintani. gabagabadii ka hor bilowgii munaasabada waxaa dhoolatus ay ku weynaynayaan xuska munaasabadani ku muujiyay kooxda ciidamada muusikada ee Baamboyda, kooxda hidaha iyo dhaqanka ee Soksa. munaasabad lagu xuseeyay maalinta haweenka adduunka ay soo qaban qaabiyeen ururka NAW ayaa lagu qabtay Hotel Ramade magaalada Boorama. munaasabadaasi ayaa lagu soo bandhigay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka waxaana munaasabadaasi ka hadashay gudoomiye ku-xigeenka ururka NAW Radwa Maxamed Cige iyo gudoomiyaha garabka haweenka xisbiga kulmiye ee gobolka iyo degmada Hibe Maxamed Cismaan iyo Safiya Cabdi. maanta waa 8 Maarso waa maalintii loo dabaaldegay ee loona casreeyay haweenweynaha adduunka. maanta waxa kale oo kaga qayb qaadanay anaga oo ku caawinay raashin bil ah ugu deeqnay isbitaalka TB-da ee degmada Boorama.
waxaan u soo jeedinayaa haweenka Somaliland gaar ahaan haweenka soo jeeda awdal inay qurxiyaan gobolka awdal sida ay xilwaanadu maanta ugu kacday anagu aan ku garab taaganahay inaan ku ogaadin iyo hambaliyo u diro marwada koowaad iyo marwada labaad. waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Boorama Saleebaan Xasan Xadi iyo xildhibaan Sahra Axmed Cabdilaahi iyo xubno ka tirsan ururka haweenka ee gobolka Awdal waxaanay cadeeyeen in maalintani ay qiimo weyn ugu fadhido haweenka Somaliland. waxaa iyaduna halkaasi ka hadashay isuduwaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Fardowsa Sheekh Siciid. laakiin maanta waxaynu odhan lahay ha ku dhageeyno gobolka Awdal inuu noqdo sidii tacadiyada wax looga qaban lahaa maadaama uu kubsigii badan yahay. sidoo kale waxay ururka naw ee gobolka Awdal deeq raashin oo marwada koowaad ee qaranka marwo Aamina Waris u soo dirtay gaarsiiyeen isbitaalka TB-da magaalada Boorama waxaanay ka mahad celiyeen deeqdaasi raashinka ay soo gaarsiisay marwada dalka marwo Aamina Waris. dhanka kale maayarka degmada Boorama Saleebaan Xasan Xadi iyo xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada Boorama iyo mas'uuliyiinta ururka Hirda ayaa ka qayb galay munaasabad lagu xuseeyay maalinta haweenka adduunka oo maanta guud ahaan laga xusayo gobolada Somaliland. waxaa ugu horeyn munaasabadaasi ka hadlay Dr. Sulub Ismaaciil oo ka mid ah saraakiisha ururka Hirda oo fadhigiisu yahay magaalada Hargeysa. maalinta ujeedadu waxa weeye in haweenka maxay la isu keeno isla markaana laga doodo waxyaalaha maxay ka dhanka ama tacadiga ku ah xuquuqda iyo sharafta haweenka. waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay Nimco Cismaan iyo Bile iyo xildhibaan Badan Muuse Gaafane waxaanay ku dheeraadeen inay haweenku yihiin laf dhabarta bulshada. waxaa isaguna halkaasi ka hadlay maayarka degmada Boorama Saleebaan Xasan Xadi. waxaan u maraynayaa xuquuqda wixii Ilaahay kitaabka ku sheegay wax ka badan anigu idinla siinayo kulley waxaan leeyahay intaa haddii si fiican loo farsameeyo si fiican loo isticmaalo intaasaa barid ka soo haraya. dhanka kale xildhibaan Sahra Axmed Cabdilaahi oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Boorama ayaa maanta xuska 8 Maaris dhirayn ku samaysay wadada halbowlaha ee magaalada Boorama. waxaan ka codsanaynaa bulshooyinka gobolkan u dhalatay iyo degmadani in ay ka qayb qaataan wax kasta oo waxqabada oo degmadan ka socda inay hormood ka noqdaan. waxaa iyaguna dhirayntaasi ka qayb qaadanayay ururka haweenka ee Naw. Amran Caafi TV-ga qaranka Boorama. munaasabad ballaaran oo loogu dabaaldegayo 8 Maaris oo ah maalinta haweenka adduunka ayaa maanta lagu qabtay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaana soo qabanqaabisay dallada Nagaad. guud ahaanba munaasabadan ayaa waxay ahayd mid dareen iyo shucuur ay ka muuqato haweenweynihii ka soo qayb galay barasaabka gobolka Togdheer saraakiil ka socota wasaaradaha shaqada waxbarashada ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Burco waxaana ay hambaliyo u direen guud ahaanba haweenka Somaliland gaar ahaan kuwa Togdheer. haweenweynaha adduunka gaar ahaan haweenweynaha reer Somaliland haweenweynaha reer gobolka Togdheer gaar ahaan intay hor fadhida waxaan leeyahay hambaliyo. hooyaday makaaniga waa nooshahay waqtiga aad aragtay da'daas aan joogo ilaa waqtigaasay si ila macaamisha sida caruurta oo xitaa waqtigaasay taada lacag ma u baahan tahay wax joogta Ingiriiska. saraakiil sarsare oo ka socday dallada Nagaad ayaa iyaguna geestooda boogaadiyay guud ahaanba haweenka. dallada Nagaad ayaa magacaygu soo leeyahay sheego ayaan musanuur waxaan ahay wakiilka u fadhiya Nagaad gobolka Togdheer. waxaan ahay wakiilka isku soo diburiday xafladan maanta halkan nooga dhacaysa ee qiimaha badan ee kula saabsan maalinta haweenka adduunka. idinkala soo qayb galay xafladan weyn munaasabadan maalinta haweenka adduunka iyadoon maanta halkan mahad iyo salaan uga gudbinayo hambaliyo haweenka adduunka oo dhan khaasatan haweenka Somaliland khaas ahaan haweenka gobolka Togdheer. aad iyo aad baan aynu maanta ugu wada dabaaldegaynaa xafladan maalinta haweenka adduunka. sababtu ay tahay aqoontii iyo siyaasadii iyo waxay isku darsadeen xirfadii iyo qaar ay ka heleen ku dayasho. iminka waxaa soo baxaya 10 haween ah oo noqon doona maamulayaal dugsi ayaa iminka inooga soo baxaya jaamacad si dhaqso ah
may jirin runtii Hargeysa mooyaane gabadh macallimad ah oo dugsi u maamula maynu arkin waxay inta badan ka shaqeysaa horumarka guud ahaanba haweenka Somaliland iyadoo muddooyinka ugu dambeeyna tababaro iyadoo muddooyinka ugu dambeeyna ku hawladay inay kor u qaado tayada waxbarasho guud ahaanba haweenka noocyadooda kala duwan gaar ahaan kuwa dib uga dhacay tacliinta وعبد الستار صبري تيفي سوماليلاند برعو وعبد الستار صبري تلفزيون كقرن كجمهورية سوماليلاند برعو مسؤولين توركوان كقرن كنوع قبل كسنة جاية داخل عشان أقارسية إسبتال كجودة مقالة عريقابو داخلنا وكتير من مرودة مدحونا جمهورية سوماليلاند مروة من ورز حاكم محمود شردي سلام كان غيب كحسك فرحة ما أنت هوا كأدوكا أيها كنوع قبل كسنة كوريتشية قدوميها قبل كسنة وسجون حلقة سكوك قدوسية مملكة إسبتال كقاعدة مقالة عريقابو مناسبة قيبين تراشين كان أيها وحكى هذا قدومي سدا وركنوع قبل كسنة هذا محمود ولا يكترون خليف دبي أو كتر سن مسؤولين توركنوع ولا بدو دب مرودة كوادة dalka uga mahad celiyay deeqdan ay ugu tala gashay bukaanjiifka isbitaalka qaaxada ee gobolka Sanaag waxa iyaguna munaasabadaasi ka hadlay agaasimaha isbitaalka qaaxada ee gobolka Sanaag Faarax Maxamuud Jaamac oo sanadinaysa ku bogaadiyay ururka haweenka qaranka ee naaw deeqdan ay soo gaarsiiyeen isbitaalkooda gudoomiyaha gobolka Sanaag ayaa sanadinaysa halkaas ka cadeeyay sida ugu faraxsan yahay deeqdan ay ururku soo gaarsiiyeen isbitaalka TV-da ee magaalada Cerigabo dhinaca kalena munaasabada maanta caalamiga ee haweenka adduunka ayaa si ballaaran loogu xusay magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Cerigabo munaasabadan ay soo qaban qaabiyeen dalada ururka haweenka ee Nagaad ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Sanaag maayirka degmada Cerigabo mas'uuliyiinta laamaha dawladda ee gobolka mas'uuliyiinta ururka naaw ee gobolka Sanaag hay'adda Care International Nagaad iyo dhammaanba qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Sanaag waxaana ugu horreyn munaasabadaasi ka hadlay suduwaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Faatimo Xaaji Xasan iyo gudoomiyaha ururka haweenka qaranka naaw ee gobolka Sanaag Wadan Maxamuud Maxamed Wallo oo labadooduba ku dheeraaday muhiimadda maalintan ugu fadhiida haweenka Somaliland iyo guud ahaanba haweenka adduunka haweenku siyaasadda aad uga qayb galin Somaliland sababuna waxa weeye dhaqan ahaan iyo faham ahaan dadkii baan wali gaarin maskaxdoodu gaarin qof dumara la dooran karo oo lagu kalsoonaan karo inay wax tar karto sidaa darteed inta dadka wacigooda kor u kacayo waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud iyo golaha sharci dejintaba waxaanu ka codsanaynaa marka koowaad bal in arrinta dib loogu noqdo si dumarku inta waciga dadku kor u kacayo gabadh ay dooranayaan bal ay kooto inoo sameeyaan waxaan halkan aan uga sheegayaa dhammaan haweenka gobol Sanaag meelay joogaanba in marti ay inoo soo qaban qaabisay marwadi ay inoo soo dirtay hanti ay tiri u siiya lacag ay tiri u siiya dadka jilicsan iyo dadka waalan iyo dadka xanuunsanaya farxadda 8 Maarso hay nagala qayb galaan taas maanta waan idin soo sheegay waxa kale iyaduna ka hadashay munaasabadaasi Shukri Cali Riyaale oo ka tirsan mas'uuliyiinta sarsare ee dalada Nagaad iyo xubno tiro badan oo ka socday qaybaha kala duwan ee bulshada iyo laamaha dawladda oo dhammaantoodba ka warramay dhibaatooyinka iyo tacadiyada loo geysto haweenka iyagoo ku baaqay in meel looga soo wada jeesto falalka ka dhanka ah haweenka maayirka degmada Cerigabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Maxamed Galadar oo gabagabadii munaasabadaasi ka hadlay ayaa iyaguna dhinacooda si ballaaran soo dhaweeyay maanta xuska haweenka adduunka Cabdiqaadir Axmed Xasan telefishinka qaranka Somaliland Cerigabo munaasabadan oo lagu xusay maalinta haweenka adduunka ayaa lagu qabtay xafiiska caafimaadka ee gobolka Saaxil waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada Berbera mas'uuliyiinta caafimaadka iyo maamulka hay'adda HBA ee ka shaqeysa caafimaadka gobolka Saaxil haweenweyne kala duwan iyo ururada haweenka oo si weyn uga qayb qaadanayay 8 Maarch maalinta haweenka adduunka loo qoondeeyay waxaana halkaasi hadallo kala duwan oo ay ka soo jeediyeen ka warramay munaasabadan iyo ahmiyadda ay u leedahay haweenka iyo sida loogu baahan yahay in laga qayb qaato gudoomiyaha gobolka Saaxil Cali Maxamed Cilmi oo halkaasi ka hadlay ayaa ka warramay munaasabadan iyo ahmiyadda ay u leedahay haweenka Somaliland iyo sida loo baahan yahay in laga qayb qaato maalintaasi haweenka loo qoondeeyay 8 Maarch ku beegan waxa uu hambalyo u diray guud ahaanba hooyooyinka kala duwan iyo haweenka dalkan jamhuuriyadda Somaliland inkastoo diinteenu ay sheegtay dumarka xuquuqda ay leeyihiin iyo raggu xuquuqda ay kala leeyihiin haddana waxa weeyaan waxa meesha ku jirtaan waxa weeye inaan haweeneyda lagu tacadiin xuquuqda ay leedahay runtii taanu ilaalinaynaa taa weeye isduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Saaxil Cabdiraxiim isduwaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaan la iyo sidoo kale agaasimaha cusbitaalka Berbera Caasha Aadan Guuleed Caasha Aadan Yaanyo iyo mas'uuliyiin ka socotay hay'adda HBA sida Yasmin ayaa dhammaantoodba si weyn u soo dhaweeyay maalintan
haweenka adduunka ee ku beegan 8 Maarch oo meel walba laga xusaayo maanta waxaana ay sheegeen maalintani ahmiyad weyn u leedahay haweenka loona baahan yahay in kor loo qaado haweenka lagana qayb qaato maalintan lagu xusaayo ama loo qoondeeyay waxay sidoo kale mas'uuliyiinta HBA ay sheegeen in maanta laga furaayo magaalada Berbera isla markaasina uu xariga ka jaray gudoomiyaha gobolka Saaxil xafiiska loogu talagalay tacadiyada ka dhanka haweenka oo noqonaya markii ugu horeysay ee laga furo xarunta gobolka Saaxil ee Berbera gudoomiyaha gobolka Saaxil ayaa gabagabadii xafiiskaasina xariga ka jaray Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud telefishinka qaranka Somaliland Berbera xuska maalinta haweenka adduunka ee 8 Maarch ayaa maanta lagu qabtay magaalada Sheekh Abdaal ee xarunta degmada Mandheera ee gobolka Saaxil munaasabada ay soo qabanqaabiyeen ururada haweenka ee ka hawlgala degmadaasi iyo waliba dawladda hoose degmada Mandheera ayaa lagu qabtay xafiisyada ururadaasi ay ku leeyihiin dawladda Sheekh Abdaal ee degmada Mandheera dadaal tiro badan oo isugu jira ururada bulshada maamulka dawladda hoose degmadaasi iyo waliba dadka oo marti sharaf ah ayaa ugu horeyn halkaasi uu ka soo jeediyay gudoomiyaha degmada Mandheera Yaasiin Axmed Yuusuf oo loo yaqaan Yaasiin Dama ayaa waxa uu ka waramay 8 Maarch iyo muhiimadda ay u leedahay haweenka iyo sida loogu baahan yahay in maalintaasi si weyn looga wada qayb qaato oo la wada xuso cid kasta oo ururada haweenka iyo arrimaha bulshada kor u qaada waxay ka shaqeeyaan ururada haweenka dad badan maalinta haweenku waa arrimaha bulshaduna waa arrimaha ugu muhiimsan Somaliland haday caafimaadka tahay waxbarashada waxyaabaha ururada haweenku ka qayb galaan aad waxaan u salaamayaa sidoo kalena xubno sarsare oo hadlayay ururada Waaheen iyo Ayasan oo magacooda la kala yiraahdo Daahir Ahmed iyo Canab Abdi Diiriya ayaa labadooduba waxa ay ka wareen munaasabadaasi iyo muhiimadda ay u leedahay haweenka iyagoo sidoo kalena ka waramay haweenka iyo kaalinta ay kaga jiraan nolosha bulshada haweenka ayaa halkaasi waxay ku soo bandhigeen ciyaaraha hay'adaha iyo dhaqanka oo loogu dabaaldegayay isla markaasina loogu damaashaadayay 8 Maarch maalin walba ayadoo buur dawladayadaasi taa aad ku helay tayo fiican iyo taageero fiicanba waxaan aragnay ما قبضتها ترى دولة حكومة Soomaaliya waxaan halkan maanta uga hambalyeynaya haweenweynaha Soomaaliland ku dhaqan ee 8 Maarch xusaya waxaan kaloo hambalyo halkan uga dirayaa marwada madaxweynaha Aamina Waris Maxamuud Jirde ayaan hambalyo aad iyo aad uga dirayaa waxa kaloo aad ugu hambalyeynaya maanta oo kale ayaa guud ahaan adduunka waxa lagu xusaa maalinta 8 Maarch kuwaas oo ay ka mid tahay dalalka lagu xuso dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo sidoo kale haweenku u dabaaldegay